بعض الصحافة جودهان شعبك نداونا يكون هالكن جوجا جودهان وحدكم سلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله مهله وعاو سورة الجلية إن هالكن سوي مانه وحنو مهد علنا يا جودة قبل قابض حفلة دان وين وحنو مهد علنا يا قف والبا وكسر قيب قلي مناسبة دان وين ونود بالدقة إنه لحلواتن كي جون وكنتوني سجال guuradii ka soo wareegtay maalintii ugu horeysay oo dhul Soomaaliyeed oo xor ah calan Soomaaliyeed oo ka babado oo laga taago waa maalintii halgankii dheeraa oo dibka loo soo maray laga maray dhaliyay oo Allah u naxariistay Cabdullaahi Suldaan Timcadde oo qiiraysan ereyadiisii wadaniyada ku dheehnayd taariikhdana gashay ku yiri sareeyo manusqaamo aan siduu yahay eegno ee kaana siib kana saar calanka Soomaaliyeed goobtii u horeysay ee laga taagay waxay ahayd beertii xurriyadda ee magaalada Hargeysa taasoo qof walba oo Soomaaliyeed shucuurtiisa iyo dareenkiisa ay taabatay halgankii gumays sidiidka iyo Soomaalnimo wuxuu ahaa mid ka soo bilowday gobolada waqooyi inkastoo gobolada koonfureed naftigoodu ay aad ula dagaaleen Talyaaniga waxa hogaaminayay dhaqdhaqaaqaas waqooyi ka bilowday Allah u naxariistay Sayid Maxamed Cabdullahi Xasan halgankaas gumays sidiidka waxa halkaas ka sii waday ururkii SYL ay hogaaminayeen 13 dhalinyaro oo noqday kacdoonkii wada gaaray Soomaali oo dhan sidoo kale halgankii gobonnimadoonka Soomaaliyeed ee gobolada waqooyi ee Ingiriisku gumaysan jiray waxa ka kacay oo hor kacayay ururo la yiraahdo National United Front United Somali Party iyo Somali National League Soomaalida waqooyi waxay ahaayeen kuwii ka diiday taladii gumaysiga Ingiriiska inaysan la midoobin koonfurta Soomaaliyeed ayna diideen inay gooni u istaagaan oo Soomaali la lahaadaan dawlad qura waxay ahaayeen kuwii awoodoodu iyo hal abuurkooda u isticmaalay waxay ahaayeen kuwii awoodooda iyo hal abuurkooda u isticmaalay baahinta iyo faafinta dareenka wadaniyada Soomaali oo qura Soomaali oo qable Soomaali oo ku wada nool hal dawlad iyo hal calan waxa xusid mudan in suugaantii Soomaalinimada iyo wadaniyada abuurtay ay ka timid badankooda abwaanadii ka soo jeeday gobolada waqooyi abwaanadaasi waxay ku reebeen ummadda Soomaaliyeed dareen wadaniyad iyo wadan jaceyl iyo ilaa maanta ay ku abuuran tahay dadka Soomaaliyeed qulubtooda waxa la soo maray duruufo adag oo aad iyo aad u adag oo lumiyay hankii iyo himiladii ummadda Soomaaliyeed ku taaminaysay xilligii gobonnimadoonka la ahaa nasiib darro duruufahaas Soomaali oo dhan ku dhacay ay keentay qabjab iyo in la quursado dadkeena meel walba ay joogaan bacdama aan kala qaybsanaanay bacdama aan kala qoqob noqonnay iyo aan isticmaalnay qabyaalad haddii markii ay dadka waqooyi ay hormood u ahaayeen dareenka gobonnimadoonka iyo wadaniyada waxaan hadda ugu baaqayaa inay hormood ka noqdaan midnimada iyo wadajirka dalka Soomaaliya si aan aqligeenna iyo cududeenna iyo hadafkeenna u mideenno kana shaqeyno mustaqbalka ubadkeenna iyo maslaxadda dadkeenna iyo dalkeenna waxaan ummadda Soomaaliyeed u xaqiijinayaa in dawladdan ay ku hoolan tahay soo celinta sharafta iyo karaamada dadkeenna ee hore u lahaan jireen iyo buuxinta kaalintii Soomaaliya ay ku lahayd
beesha caalamka si taas loo hirgeliyo Soomaaliya waa inay noqoto dal nabada ku guuleysata midnimo kuna tallaabsata horumar sidaas darteed midnimo wadajir iyo cududeena aan isu geyno ayaan kaga gudbi karnaa tartanka ka socda adduunka ee ah dhanka horumarka ama siyaasadda iyo dhaqaalaha tartankaas cusub lama jaan qaadi karno haddii aynan u midoobin haddii ummadda Soomaaliyeed aysan u midoobin awoodoodana aysan isu keenin si taas loo gaaro waxaan mar kale ugu baaqayaa ama aan ku baaqayaa in wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland aan dardargelino waxaan ku soconnaa muddo 30 sano ah hadda oo ummadda Soomaaliyeed uu waqti badan ka lumay gaar ahaan dhalinyarada waxaa loo baahan yahay in runta la wajaho oo si walaaltinimo leh wada hadalkii hakadka galay halkiisii laga sii wado la isxog waraysto la daaweeyo nabaradii laga dhaxlay duruufihii adkaa ee ina soo maray waxay dawladdu diyaar u tahay in la lafaguro oo miiska la soo dhigo wax kasta oo lagu kasban karo ama kalsooni lagu siin karo shacabka walaalaheena ee Somaliland oo looga bogsiin karo dareenkooda si wadajir ahna loogu sixi karo khaldaadkii ay keeneen marxaladihii wacdigii aan soo marnay ummadda Soomaaliyeed ma kala maaranto sidii la sheegay waxaanan marnaba aan hubaa inay Soomaaliya isu imaan doonto oo aysan kala maqnaan doonin waxaan dhalinyarada leeyahay ayaga iska leh mustaqbalka waa inay bilaabaan dood cilmiyeedyo lagu falanqeynayo mustaqbalka Soomaaliya ee qarnigan 21aadka ah ee aan ku jirno iyo sida aan uga habsaanay caalamka intiisa kale maanta waxaan u dabaaldegaynaa waa sharaftii qiimihii qabkii dadkii gobollada waqooyi ee calankii ka taagay beertii xorriyadda ee Hargeysa iyo dawladdii iyo midnimadii ummadda Soomaaliyeed ee u keeneen inay ku noqoto ummadda jirta oo caalamka aanu ku leenahay sharaf walaalayaal waxaan u hambalyeenayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dadaalkii iyo halgankii la soo maray ma doonayno inuu meel dhexe ku lumo dad badan ayaa u dhintay dad badan ayaa u lumiyay hantidoodii dad badan yaa mustaqbalkoodii ku lumiyay inay Soomaaliya ay mid noqoto inay Soomaaliya ay midowdo maanta taariikhda noqonaysa waxa qof walba oo Soomaaliyeed ha joogo waqooyi ama ha joogo koonfur ay ka qabtaan midnimada iyo wadajirka ummadeenna waxaan hubaa in kala qaybsanaan oo aan soo aragnay muddadii 30 sano aan soo marnay inaysan siinayn sharaf iyo dawladnimo iyo karaamo iyo horumar inaysan siinayn waxa kaliya aan ku gaari karno waxay tahay inaan ka gudubno qabiilka iyo qabyaaladda aan u shaqeeyno qarannimo aan u shaqeeyno taas weeye waxaan kula tartami karno caalamka taas weeye waxaan uga harnay iyada naftigeeda markii aan hore u marinay qabyaalad iyo qabiilka taas weeye waxaan noo horseeday burbur muddo dheer socday ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo insha Allah waxaan sugeynaa wiigii xorriyadda oo nagu soo aadan bisha July 1 oo ah isu tagii koonfur iyo waqooyi waxaan leeyahay hambalyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh